qadiyad waxaa jirta videoga ku jirtay oo ahayd in aad loola yaabo waxaa laga filanaynin ahaato isla hadal kamid ah hadaladii laga doonay ay kamid ahayd oo ahaa anoo sigaar cabayo subxaanallahi dhacdadaas dhacdayna mishin lagu dhigay markii maxaan ku rahay sigaarka aan dhuuqayna iyaga ayaa iga dalbada waxa ay ka wadeen maana fahmi karin danta ay ka lahaayeen sigaar lay daaro waxay ahayd in mujaahidiinta ay ku suurad xumeeyaan waxa ay ugu suurad xumeynayaan ay ahaato inay sidaas dawladdu leeyihiin oo sigaar iyo jaab iyo balaayo kale iyagu ay cadaan iyaguna ay cadaan laakiin fadaaka hal xaba iyo dhibi maayo anu sigaarna ma cado filimka waxaa kamid ah maxaan ku rahdaa warkii ugu dambeeyey oo iga duubaan ku jiray oo ahaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin waxaan qofka sheegay in jirdil loogu keenay jirdil miyaa lagaga keenay waa leeyimeelsho warka aan dhahayo laakiin xaqiiqiyan waxaa ah oo indhahaygaan ku arkay waxa lagaga keenay in ay jirdil ahayd waxa lagaga keenay inay ahayd koronto waxa lagaga keenay inay ahayd silsilad boolalku lagu xiray oo adiga dhan laisku kaa keenayo laguna istaajinay caloosha inta kale laisku keenayo ciribtaada lugtaana lagaa tusayo dhabarkaaga oo fiiri lagu leeyahay ciribtaada markii aan fiilisana ciribtaada aa arkaysa waa dareemaysaa qof dhabarka la isugu jibiyey sida uu noqon lahaa waa dareemaysaa qof koronto lagu dhejiyey sida uu noqon lahaa waa dareemaysaa qof la isugu tagay ee biyo iyo basbaas madaxa loo gelshay sida uu noqon lahaa dhammaan ciqaabaadkaas oo dhan waa wax ka jira madaxtooye waa wax ka jira dadka jeeco waxay ugu yeereen degmada koondheer ku yaalo waa wax ka jiro maxaan ku dhaha dhammaan saldhigyada waa wax ka jiro maxaan ku dhahda isheeg ay xarun oo hay-adaha amniga waxay ugu yeereen ay degiyiin xabsiga dhex markaan soo gaarnay dadkii ku jira waxay ii sheegeen meel halkaan ah oo qol oo kor ka duusan in dadka lagu ciqaabo aadna loogu ciqaabo madaxtooye ku jirna dad badan oo ay afrikaanta ah inta soo qabteen soo jirdileen calaamado ay kasoo bixiyeen ayaa maxaan ku rahdaa isheeg lagu keenay waxaa ka jira markaad ogaatid waa su-aasha ugu horeeyo ay isweydiinaysa miyayna dadkaan dawlad sheeganaya dadka dawladda ay u yihiin aynan ka rabin taageero iyo wax lamid ah marka ay dariiqa wax lagu tacdiibiyo halka kan way ka jirtaa intee u dhiman qofka in qoomuluudnimo lagu sameeyo ee gadaal looga tago waxa u dhamana u haray maxay tahay nimankan waa aadaad meesha u dambeysay waxaa ku arkay intaa madaxtooye ku jira dad bax ku dhintay bax baa madaxa loo geliyay waa lagu ilaabay markii lagu ilaabay qofkii neeftaa ku xirmaysa hore lagu sii socdaa. A former prisoner told us about groups of suspected Al-Shabaab being brought in for interrogation. He said one man would be singled out and tortured, while others were forced to watch. The aim, he says, is to frighten them into cooperating. ماشي الباب مركو سو غلاي او امراو او سو امراو عدانك عدانك oo ku celina hadana markuu ku celiyo oo kadib oo dhaco oo qofka xogaa miirka oo beelo oo zam oo dhaho oo ka qaada shib markuu dhaho hadana mar saddexaad ku celina hadana saddexaad markuu ku celiyo hadana qofka oo sida hadana oo noqdo marka adiga dilku ugu weyn lagu sameeyay muxuu ahaa buday u garaacan iyo qori baadkiisi. This man agreed to talk to me. He says he was snatched from the street on his way to work and held there for 2 weeks. Even when they are no longer deemed an Al-Shabaab threat, they have to pay the militiaman to get out of jail. baydhabo waxaan u tagay waxay ahayd inaugurationkii madaxweynihii cusbaa ee koonfur galbeed xafladii looga caleema saaray intii xafladii socotay baan anigu kormeer ku aaday iyadoo mas'uuliyadeeda ay taabanayso xabsiga baydhabo ficlan I don't like inaan ka sheekeeyo duruufihii aan kusoo arkay waxyaabaha aan kula kulmay waxaa ka mid ahaa in askartii oo markaa timid oo gacmaha dhaqanaysaan oo imid oo ciid iyo lugaha iska dhaqaysa waa weydiiyay waxay yiraahdeen duug baan ka nimid waxaan ka nimid maxbuus baan soo xabaalnay xalay ku dhintay meesha wuxuu dhintay sidoo u taagnaa meel uu fariisto waayay. runtii Soomaaliya waxay u baahan tahay iskuulada waxa ka muhiimsan xabsiga hadda
waxyaalaha dildilka ah ee halkan maxaan ku dhaha yaalla waxaa kamid ah oo ilaahi subxaana watacaala ani uga badbaadshay dadka lasoo qabto meeshaan in lagula dhaqmo qaab qowmluudnimo ah oo ninka raggaa dabadii loogu tago maxaan ku dhahdaa isha dad badan oo lagu soo sameeyey maxaan ku dhahdaa isha waa arkay waxaa kaloo kamid ah bac basbaas basbaas buuxda in madaxa lagu galsho bac biyaa in madaxa lagu galsho bac aari ah in laisku ciqaabo oo madaxa lagu geliyaa oo hal daqiiqaday kugu jido maxaan ku dhahdaa ay khatar u tahay in aad ku dhugeeriyootid